halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda ee Soomaalida qodobada aad daawan doontaana waxa kamid ah Sheekh Mukhtaar Rawo wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliya magaalada Muqdisho ka sheegay in al-shabaab sidaan aan looga adkaan karin iyo sidoo kale hadalkiisii oo dhawaan laga falceliyay siyaasiyiin iyo Soomaali badan ay ka falceliyeen iyagoo sheegay in wasiirku wali saameyn ku dhaxleeyahay dagaalamayaasha al-shabaab ee xogana ka hayo dagaalada xilligan ka soconaya guud ahaan gobolka warkii uu ka jeediyay madal ka dhacaysa magaalada Muqdisho saaxiib yaaladiis soo gudbin doona qodobada kalena waxa kamid ah beesha xawaadle oo ku dhawaaqday in gawi ahaanba ay joojinayso dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo oo sheegtay in dagaalka kaligeed lagu fiirsaday sidoo kalena dawladda iyo sidoo kale qabaa'ilada Soomaaliyeedna ay sheegtay in ay garab siinayaan dagaalamayaasha al-shabaab qodobada kalena waxa kamid ah ciidamada dawladda waxa ay la wareegeen deegaanadii dhawaan ay qabsadeen oo al-shabaab ay dabcan markii dambena la wareegeen deegaanadaasi waaye Sooman iyo sidoo kale Moqokor iyo deegaano kale aad u tiro badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan dhaqdhaqaaqyada waxa laga dareemayaa gobolada Bay iyo Bokool ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobadaasi kuwa kale aan qaybtan ku faaqidi doonaa saaxiibayaal balse aan ku bilaabo faahfaahinta wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Rawo Cali Abu Mansuur ayaa dhawaan Muqdisho ka sheegay in al-shabaab wali ay ku xoogan yihiin gobolada Soomaaliya sidoo kalena wasiirku waxa uu sheegay in cudurda hadda Soomaaliya ay haysataan looga adkaan karin al-shabaab isagoo oo sheegay in haddii loo midoobo oo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay u midoobaan laga yaabo in markaasi dabcan la soo dhaweeyo awoodii lagu wiiqi lahaa dagaalamayaasha al-shabaab Mukhtaar Rawo hadalkiisa waxa ka falceliyay siyaasiyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa hore xilal u soo qabtay shacabka Soomaaliyeedna aad ay uga falceliyeen iyagoo ku eedeeyay in uu hadalkaani sidoo kalena u noqonaya didiilo cusub dagaalamayaasha al-shabaab oo xilligan deegaanadii ugu badnaa abid laga qabsanayo ee qabaa'ilada Soomaaliyeedna ay ku kaceen oo deegaano dhowra oo ka kala tirsan gobolada Aniraade gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya wasiirku ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in hogaamiyihii la dilay al-shabaab ay muhiimad u siinayso ama sidoo kalena ay guul u tahay Soomaaliya sidoo kalena waxa uu sheegay in hogaamiyaal badan oo ka tirsan al-shabaab xilligan uu og yahay meel ay ku sugan yihiin maadaama uu isagu hore uga tirsanaa balse haatan uu xil ka hayo dawladda Soomaaliya wasiir Mukhtaar Rawo ayaa dhawaanahanba waxa soo ifbaxayay in wali uu si rasmi ah uga soo bixin al-shabaab sidoo kalena uu xiriir la leeyahay xilli wararka qaar ay tibaaxayaan in isagu naftirkiisaba uu kala kulmayo hanjabaadyo iyo fariino uga imaanayo dagaalamayaasha al-shabaab beesha xabaadle haddii aynu eegnana waxa ay ku dhawaaqday inay gabi ahaanba joojinayso dagaalka ay xilligan kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab iyagoo sheegay in dagaalka lagu kala yeelay sidoo kalena qabaa'ilada Soomaaliyeed ay ku fiirsadeen dagaalkani xilligan ka soconaya gobolka Hiiraan oo iyadu ah beesha ugu tunka weyn ee gobolkaasi degta xildhibaan Sambaloolsho oo kamid ah siyaasiyiinta beesha xabaadle kana tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in beesha xawaadle beelaha kale ee Soomaaliyeed ay ku fiirsadeen dagaalka lagula jiro al-shabaab sidoo kalena waxa uu sheegay in beeshu awoodeeda ay isugu geysay sidii ay ula dagaali lahayd al-shabaab oo uu sheegay inay culays ku hayso bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshooyinka dega gobolada koonfureed ee Soomaaliya iyo sidoo kale gobolada dhexe ee Soomaaliya xildhibaanka ayaa hadalkani waxa uu sidoo kale ku sii sheegay in al-shabaab ay kaliya beegsanayaan xubnaha muhiimka ay sidoo kale haldoorka oo ka soo jeeda beesha xawaadle oo uu sheegay in xilligan dagaalka rasmiga ah kaliya ay kula jirto al-shabaab ay tahay beesha kaliya ee xilligan lagu fiirsaday dawladda Soomaaliya waxa uu soo jeediyay in ay garab siiso beesha haddii ay lahayd inay saanad ciidan geyso iyo sidoo kale in ay ciidamadeeda kuwa Muqdisho ku sugan oo uu sheegay in siyaasiyiin badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya ay xilligan hub iyo sidoo kale ciidan badan ku dhaxwataan magaalada Muqdisho isagoo sheegay in hubkaasi iyo askartan tirada badan leh ee caasimadda ku sugan looga baahan yahay in la geeyo furimaha hore dagaalka ee lagu la dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab oo uu sheegay in xilligan haddii loo midoobo dabcan laga awood roonaan karo xildhibaan Sambaloolsho sidoo kale aragtidani waxa la qabo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo isagu madaxweynaha Soomaaliya u soo jeediyay talooyin badan oo uu ku sheegay in beesha xawaadle xilligan awoodda kaliya ay leedahay ay tahay ama sidoo kalena ay gurmad ka sugayso dawladda federaalka Soomaaliya xilli magaalada Muqdisho maalinimadii shalay ay ka ruqaansadeen ciidamo aad u tiro badan oo la sheegay in ay ka badan yihiin 400 oo askari oo kamid ah beesha Abgaal sidoo kalena ka kala tirsan hay'adaha dawladda Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan ayaa waxay u ruqaansadeen gobolka Shabeellaha Dhexe
iyagoo sheegay inay isku xiri doonaan gobolada dhexe ee Soomaaliya gobolka Galgaduud oo beeshu ayada ay degto iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe. xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa beesha kamid ah ayaa hogaaminayay howlgalladan la sheegay in lagu sifeynayo ama lagu xoreynayo deegaanada beeshu ay degto ee ku jira gacanta al-shabaab. deegaanada beesha ay degto oo gacanta al-shabaab ku jira waxaa kamid ah degmooyinka Aadan Yabaal iyo sidoo kale degmada kale ee Celeere ee gobolka Galgaduud oo al-shabaab ay xukumayeen muddooyinkii ugu dambeeyay. sidoo kalena xildhibaano oo warbaahinta la hadlay oo ka tirsan beesha Abgaal ayaa sheegay in aysan ka soo laaban doonin ilaa iyo ay guul ka gaarayaan ama sidoo kale ay xoreynayaan deegaanada beeshu ay ka degto gobolada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee Galmudug Soomaaliya. xildhibaanada hogaaminaya waxaa kamid ah xildhibaan Maxamed Cajiib oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xildhibaano kale oo beesha Abgaal ka tirsan sidoo kalena aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kalena iyagu hubkii ugu badnaa abid magaalada Muqdisho kala baxay. waxay sheegeen in ay qorsheynayaan in dhalinyaro kale oo beesha kamid ah oo aan ka tirsaneen dowladda Soomaaliya oo iyagu abaabulaya waliba qaab qabiil ama qaab macawisle isku abaabulayo iyagu qayb ka noqon doonaan dagaalada ama howlgallada ka dhanka al-shabaab ee dhawaan ay bilaabayaan beesha Abgaal. sidoo kalena siyaasiyiin kale oo iyagu ka tirsan ama saraakiil kale oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa iyagu waxay ku hanjabeen in ay qayb ka noqonayaan howlgallada lagu ciribtirayo dagaalamayaasha al-shabaab. beeshan ayaa la rumaysan yahay in ay tahay beesha ugu badan ee deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe degtay sidoo kalena deegaano dhowr ah al-shabaab ay ka haystaan oo muddooyinkii dambaba ay maamulayeen. dhanka kale haddii aynu eegno ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay la wareegeen deegaano tiro badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. deegaanka iyo Sooman ayaa kamid ah saaxiibayaal. deegaankani waxaa dhawaan la wareegtay al-shabaab iyadoo markii horeba dowladda federaalka Soomaaliya ay gacan ku haynteedu al-shabaab kala wareegtay balse dib ay u baneeyeen ciidamada dowladda iyo kuwa macawisleyda oo ay isaga soo baxeen. deegaanadaasi iyo sidoo kale deegaano kale oo aad ku tirsan degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan Soomaaliya ayaa waxaa la wareegay ciidamada macawisleyda iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo iska kaashanaya howlgallada xilligan ka soconaya gobolka Hiiraan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayto Cusmaan ayaa ku hanjabay in dhawaan uu aari doono dadkii maalinimadii shalay lagu qarxiyay xerada Lamagalaay ee magaalada Beledweyne oo dabcan dhaawacyadoodu ka badan in la sheegay in 70 dhaawacyo iyo ka badan laga soo helay. sidoo kale dhimashadu waxaa lagu sheegay in 20 ay ka badan tahay. dadkani dhaawacyadooda aad ku daran yihiin ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loogu soo daweeyo. sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay magaalada Beledweyne u dirtay agabyo caafimaad iyo sidoo kale dhaqaatiir daweysa dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay xerada Lamagalaay oo ah xarunta labaad ee maamulka Hirshabeelle ee uu ku leeyahay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay qubnaha TV-na xilligan daawadayaal wanaagsan.